wasiirka howlaha guud iyo dib-u-dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Jowhar ayaa madaxda Hirshabelle kala shiray sidii kaabayaasha dhaqaalaha sare loogu qaadi lahaa. Wariyaheena Abuukar Maxamed Bacadle ayaa warkan Jowhar ka soo diray. wafdigani soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka dib-u-dhiska iyo guureynta dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Saadiq Cabdullaahi Cabdi. wafdigani ayaa kulamo kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle iyagoo ka wada hadlay sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle. kulanku markuu soo ilaaday ayaa warfideenada waxaa warbixiyay waxyaabihii laga hadlay wasiirka howlaha guud iyo dib-u-dhiska Hirshabelle Xuseen Jaamac Xuseen Xaashi. waxay u yimaadeen dowlad goboleedka Hirshabelle inay ku daahfuraan mashruuca tayeynta wasaaradaha howlaha guud. mashruucaas waa mashruuc lagu tayeynayo ama capacity building loogu sameynayo wasaaradaha howlaha guud heer federaal iyo heer dowlad goboleed. waxaasna ka hadlay ujeedka ay soo gaareen maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle wasiirka howlaha guud dib-u-dhiska guureynta dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Idris Cabdullaahi Cabdi. ujeedka safarkeena aniga iyo wafdiga la socda waxaa faahfaahiyay wasiirka. waxaanu rabnaa inaan daraasad guud samayno oo ku aadan baahida dhabta ah ee ka jirta deegaanada Hirshabelle, sidoo kalena aanu wax la taaban karo mashruucan tayeynta manpowerka iyo resourceska wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. safarkii ugu horeeyay waxaan ku tagnay gobolka Jubbada Hoose, magaaladiisa Kismaayo, maamulka Jubbaland. kii labaadna waxaan ku joognaa magaaladan wasiirada oo anigu horeeyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha waxay ugu kala maqan yihiin gobolada dalka si ay mashruucaanayto daraasad midaan inta u jooga lamid ah ay uga soo sameeyaan isla bishan dhamaadkiina aanu dardargelino wax allaala wixii daraasadda ka soo baxda oo ay ugu horeyso inaan manpowerka wasaaradda howlaha guud ee heer dowlad goboleed aanu dhisno, resourceska ama waxyaabaha ay u baahan yihiin aanu sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gaarsiino. Abuukar Maxamed Bacadle, Radio TV qaranka Soomaaliyeed, xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle, magaalada Jowhar.